Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. Qarnigii toddobaad ee miilaadiyada waxay Yuhuuddu abaabushay kacdoon ka dhan ah boqortooyadii Ingiriiska, taasoo lagu dilay Charleskii koowaad. Yuhuudduna waxa ay gaadheen hiigsigoodii. Abaabulkana hore ayuu qorshihiisii u diyaarsanaa. Waxaanu ku gaabsanaynaa waxa ahdaaf ee taariikhdu qodhay, inagoo qodobaynana. Yuhuuddu waxay ahaayeen xilligii ay Ingiriisku joogeen kuwa saameyn ku leh dhaqaalaha iyo meelo badan oo ay curyaan bay geliyeen dhaqaalihii dalka. Markaas buu ermay Edwardihii koowaad oo markaas boqorka ah Ingiriiska in waddanka laga eriyo. Goortii laga eriyay waddanka Ingiriiska waxay fikrad ku galeen Faransiiska, Netherland iyo Jarmalka, waxayna hadafkooda koowaad ka yeesheen inay Ingiriiska ay qabsadaan. Waxa ay shaqaysiiyeen qorshe u degsanaa oo ahaa inay khilaaf soo kala dhexgeliyaan boqorka Ingiriiska markaas Charleskii koowaad iyo baarlamaankiisa, oo waxay lacag ku fadhiyeen hogaamiyihii markaas ciidamada hogaaminayay Oliver Cromwell oo ay lacag ku iibsadeen. Yuhuuddu waxa ay abaabuleen boqolaal banaanbaxyaal oo tababaran oo dadka banaanbaxyaasha sameynaya ayaa waxay u shaqaynayeen Yuhuudda iyo kuwo kale oo banaanbaxayaasha iskaga biiray. Marka haddii dhabta la eego waxa Ingiriiska banaanbaxayay boqolkiiba 70 waxay ahaayeen dad Yuhuuddu ay lacag soo siisay inay banaanbaxaan. Waxa uu waraaq qoray Cromwell xaaqamkii haystay kaniisadda Holland ku taalla oo madaxweyntii ka mid ah kaniisadaha sanadku markuu ah 1647. waxa waraaqdu ku qornayd waana aqbalay heshiiska aad soo bandhigteen, balse arrinkaas intuu boqor Charles nool yahay taladaas hagaagi mayso. Boqorkana lama dili karo iyadoon la maxkamadeyn. Daliil aan maxkamad ku saarnana ma hayno. Sidaa oo ay tahay waan afgembin doonaa. Wuxuu ugu soo warceliyay xaaqamkii hiil iyo hooba waan kula garab taaganahay halka tuuridda Charles. Marka aan afgembino Charles fursad ayaan u siin doonaa inuu cararo, inagoo mar labaad qaban doona oo maxkamadeyn iyo xukun dil ahba ku fulin doona. Isla sanadkaas waxaa boqor Charles u bidnaantay fursad uu ka baxsado kadib markii la afgembiyey. Isla markiiba waa la qabtay sidii uu qorshuhu ahaa. Markii la qabtay kadib waxa uu Cromwell ahaaday mid u sifeeyay xubnihii baarlamaanka inuu boqorku dambiile yahay. Waxa ay baarlamaanku ansixiyeen inuu boqorku xilka iska casilo oo boqor cusub la doorto. 2 sano kadib waxaa la maxkamadeeyay Charles, waxaana loo dilay qaabkii waaga dadka loo dili jiray oo ahaa in qofka madaxiisa uu dul saaro alwaax saa u dheer, kadibna seef kurka laga dhufto markaasuu ku dhexbixi jiray. Kadib dilkii boqorkii Ingiriiska ee Charles koowaad, Ingiriisku waxa uu galay dagaalo badan uu Cromwell hogaaminayay 1649 ilaa 1689. sanadku markuu ahaa 1649 waxa uu ku duulay Ingiriisku Ireland dalka la yiraahdo isagoo fulinaya qorshihii Yuhuud ay u dejiyeen. Kadib 3 sano oo ay ku beegan tahay 1652 Ingiriisku wuxuu dagaal la galay Holland, wuxuuna ku dhawaaqay Cromwell inuu yahay keligii taliye Ingiriiska ka talinaya. sanadku markuu 1653 Ingiriisku dagaalo badan buu galay. intaas kadib waxaa baktiyay Cromwell waxaana soo laabtay nidaamkii boqortooyada, waxaana talada qabsaday Charleskii labaad oo uu dhalay Charleskii koowaad. wuxuuna daaha ka fayday foolxumooyinkii u qarsoonaa Cromwell iyo kuwii la shaqaynayay, wuxuuna amray in la dilo kadibna la waro. balse Yuhuuddu dhagartoodii halkaa kuma joogsan. ilaa 1689 ay talada iyo maamulka ku milmaan oo Ingiriiska saa u qabsadaan dhaqaalaha ka gumaysanayaan. maanta mawduuca intaas uu ka egyahay. nabadgelyo.